والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد ساك شركة جرائد كجاه لنا عارفين بالشدة أياد وقايلسي أو وسير كي هؤلاء جود أو معين لويد بوقشكوا يمدي قبرك أو إماتي كوا يمدي عارفين هرا الله درين سنة أو مرك هرا ددوينا بين الله شيء أو أنوكا هذا اللي أقول يجري نوكا لما يبين هيو إلى صوب حليلو مالين واحد لابسنا يسقو شوقي أو ورقة جريتا أو قراه لما كان عصتها يسقو ملكي يكون رجليه هذا بقى حكومته أما الدولة المدو أو تورثك الدولة المدو ويبين كران لكن وضد عيون مريان أيها خلدان إيوه باهذا مركب ماشى كجرته dadka wax looga qabanayo wixii lagu bedelanayo dhulka danta guudaha dhulka danta guudi waa dhul ka dhaxeeya dadweynaha gobolka awdal oo dhan ama gaar ahaan reer Boorame Boorame markaynu dhaamo gobolka awdal markaynu dhaahno waxaynu arkaynaa maraakiib laga kiranayo badaha oo lacag badan laga shubayo oo aan gobolkii wax laga soo celinayay waxaynu arkaynaa wasiirkii macdanta oo inta macdantii xaraashaya oo shirkada ka iibinaya musuq badan oo ku duugan yahay xukuumaduna ayna waxba ka qabanaynin wasiirada malaha qaar baa authority gaar hayso awoodoodu ka badan tahay wasiirada kale wallahi waa wasiirada madaxweynaha isku haybtayeen weey waa arrin la yaab leh weey imigana waxa jira sahankii shidaalka oo xeerkii xataa dadku si uga faa'iideysanayeen aan dadweynaha loo sameeynin oo khasab ay ahayd in la sameeyo xeerka saami qaybsiga khayraadka dhulka lama sameeyo weey imigana shirkado shisheeye ayuu wadaa wasiirka macdanta biyaha ku talaxtay maayta laakiin ishiiga Boorama ka taagan waxa weey wasiir cali malaxaan oo meel dhaweyd booqasho ku yimiday oo saddex meelood oo muhiim u ahaa dadweynaha reer Boorama ama gobolka awdal xaraashaan ugu wareejiyay niman ganacsataan ka soo ganacsatada ay yihiin reer awdal sida la sheegayo reer awdal wuxuu in laga iibiyo maaha wax dan guud lagu qabsan lahaa dan gaar in loo iibsado maaha hadaan baahi kaabayaasha dhaqaalaha waxba looguma qabto airportkeenu wada arkaysaan wadooyinkeedii inta dadweynaha xukuumadda iska kaashaday ma qarinayna anagu ee dilay u dhaxaysa ma aragtay Boorame laakiin midka meesha taali waxa weeye waxa la iibinayo waa in laga ansixiyaa golayaashu ma aha golaha baarlamaanka wuxuu ansixiyaa marka shirkad shisheeye wax laga iibinayo laakiin marka degmo xaraash laga sameeyo marka hore waa in dawladda hoose ay ogaato weey oo golaha deegaanku aw ka fariisto weey oo dadka loo soo bandhigo ta kale marka la xaraashayo wax bal hadda sharciga sida loo gabsan yahay sheegay marka la xaraashayo wax waa in bid la sameeyo oo si transparent loogu soo bandhigo dadka media laga sii daayo warmayna arago ma dhicin marka lacag xukuumaddu ay jeebka ku shubanayso iyo ganacsatada danaystayaal oo iyaguna lacagta maaragtay ku bedelanaya dhul